tababaraha dhawaan loo magacaabay shaqada Chelsea Mauricio Sarri oo labadiisii kulan ee ugu horeysay Premier League-na ku bilowday si qurux badan ayaa u fasaxay ciyaartoyda Chelsea arin la yaab leh. Warbixintan waxaad kala socotaan Qaraaxa Tube. Fadlan subscribe channelkeena, like saar una share garay asxaabtaada si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Xidigaha kooxda Blues iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta waxaa laga doonayaa in dhaqsi ay imaadaan tababarka subaxii, taas oo ka hor istaagi karta inay la kulmaan caruurtooda ay waqti la soo qaataan gelinka hore ee subaxii xaasaskooda. Balse Mauricio Sarri ayaa ka duwan tababarayaashaasi, wuxuuna hadda fasaxay in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Chelsea ay waqti la soo qaadan karaan caruurtooda, xaasaskooda, sidoo kale la soo quraacan karaan reerkooda, taas oo u fududeynaysa inay waqti badan u helaan qoysaskooda. Sidaas darteeda bedelkeeda subaxii waxa ay tababarka qaadan karaan galabkii amaba ilaa waqti dambe ayuu gaari karaa tababarka kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Tababarihii ka horeeyay ee Antonio Conte sidaas ma ahayn. xilli hore ayaa la imaan jiray tababarka kooxda kubadda cagta Chelsea, balse Mauricio Sarri ayaa ka duwanaaday qaacidadaasi. Sarri oo 59 sano jir ah ayaa aad u jecel ciyaartoyda, waxaase loo arkaa tababare inta badan la falgala xidigaha, isagoo labadii kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League mid kamid ah oo Arsenal la dheelay guul muhiim ah gaaray. Lama oga wax u dambeyn doono 36 kulan ee ka harsan horyaalka gaar ahaan Chelsea iyo tartamada kale ay Blues ka qayb galayso, balse hadda aad ayaa loo amaanayaa habdhaqankiisa iyo sidoo kale sida uu u soo jiitay ciyaartoyda kooxda Blues.